waxaynu markaa si degdeg ah u dulmari doonaa inaynu soo bandhigno sidii halkii hore oo kale sababaha lagu galo jannada iyo jannada waxa yaala waxa aynu soo xusi doonaa camalada qaarkood waa arkaanul iimaanki iyo arkaanu islaamki iyo usuushii diinta waa weynay laakiin camalo kale oo aynu fudaysano dadkoo dhamina inta badan samayn karo ayaynu arki doonaa inay sababaha jannada yihiin si kale haddaynu dhigno jannaduba inay sahlan tahay dadku lagu kari laayay baynu arki doonaa jannaduba dariiqeedu wuu sahlan yahay gadaankay saarantay agtaadaasay taallaa marka soo qaadashadii dadka ayuunbaa waxaa u diidan kaarhkeedii in lasoo qaatunbuu ibliis diidan yahay markaad gacanta ku fidiso saasuu kaa odhanaya oo kolba uu kuu diidayaa inaad kaarhkaa qaadato kow sababaha waxaa kow ka ah aliktaaru min alacmaali asaalixa camalada wanaagsan in la badiyo albaaqiyaat asaalixaat buu nasku u bixiyey waa waxyaabaha hadhaya camal kasta oo khayr la qowl iyo ficil iyo qalbi camal kasta oo khayr loo diintu ina fartay in la badiyo nebigu xadiid waxa uu ku yihi calayhi salaatu wasalaam saxiixa qofku haddii uu wejigiisa u dhacu weligii sujuudsanaado ilaa maalintuu dhimanayo intuu gaboobay gabow dhimanayo camalkiisa maalinta qiyaamo uu xaqiri lahaa laba arrimood buu xaqiraya korkuu arko balaayada weyn ee meesha ka dhacaysa aynu ka soo warranay wuxuu odhanaya wallaahi camalkani waxba ka tari maayo meesha waxa soo socda ee balaayays huwan waxba ka tari maayo wixii yaraad samaysay waxa labaadoo u yaraysanayaa markuu arko deeqda ilaahay iyo nicmada meesha taaltaalle faraha badan ayuu odhanaya camalkaagii yaraa muxuu ka goynayaa in badan ba aad soo sujuudide muxuu ka tarayaa camalkaaga ayuu odhanaya waxyaabaha qofka sabab ugu noqdo waxaa ka mid a imhaalu lmucsiri watajaawuzu canh dadka dhiban oo loo fududeeyo daynta ila qofku hadduu faqiir yahay u warwaraya gashina qaato oo dayn lagu leeyahay wuu nugul yahay wuu cabsanaya wuu damqanaya haddaba qofkii daynta ku lahaa hadduu u dabciyo idhahdo bar iska keen ama u idhahdo miyaad weyday waaban kaa saamaxay jannada sababaheedu ka mid yahay lagu galayo xadiid saxiixa oo muslim ku sugan shardigiisa abi hureyra uu nebiga ka soo maqlay calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxu uhi nin baa ummadihii hore ka mid ahaa weligiiba khayr muu samayn laakiin inta khayr uu sameeye keliya waxay ahayd dadka marka uu daynta ku yeesho shaqaalihiista daynta soo ururinaya ay u tagaan ee uu qofku idhaahdo waxba ma hayo ayuunbu dha inaga daaya miyuu soo waayey iska dhaafa maalintii qiyaamaha camalkiisii loo miisaamo waa la waayey waxba waa loo waayey waxa uu ihi hal camilta khayran qad qaala la miyaad khayr weligaa samaysa adla shir timaada maya laakiin waxa uu sheegay dee markaa dadka uu daynta ku leeyahay waayaan inuu ka dhaafi jiray ilaahayna wuxuu ihi ilaahii boqorka ah baan ahaye isagoo addoonuu dadka ka dhaafi waayey ayuu ka dhaafayay dayntae ma anaan ka dhaafayn ilaahayna wuu ka dhaafay wixii haddaba ninkii bilaa khayrka ah waxba qabaninba kale marka arrintaasi arrin sahlan ma aha qof nugul oo dabacsan oo dayn ku leedahay inaad u dabciso waxyaabaha inala fudud waxaa ka mid ah sababaha jannada lagu galo jidkan dadku ay marayaan oo laga qaado wixii dhiba imaadatulada cani ariiq inaan weligiiba khayr samayn buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo saxiixa ayaa waduu marayayo dhirtii geedkii kusoo foororay ee dadka qabsanayay qodaxdiisu ay waxyeelaysa ayuunbuu ka jaray kolkaasuu ilaahay jannada geliyey fashakara allaahu lahu biha faadkhalahu ljanna xadiidkaa saxiixa ilaahay baa u mahadnaqay maxaad malaysa addoon yaroo miskiino ilaahay u mahadnaqay ilaahay weynaabaa u mahadnaqay kolkaasuu jannada geliyey waa wixii jannada lagu gelaya waxaynu ka hadlaynaa markaa inaad kudaafadii qaaddood shaarica ku daadiso maya waataa maanta laynoogu faanayo laleeyahay clinicskii waxaa yar haddii aad daska ku daadiso reer magaalnimadaadii waxu dhinmaya innagii baa laynoo faanaya innagii ay ahayd inaynu jannada ku raadsanno waxa kudaafadda laga qaadayo ayaa maanta la marayaa waxaa laydin barayaa shaarica sida loo nadiifiyo iyo sida loo farxasho waa nasiib daro waxyaabaha jannada lagu galo waxaa ka mida dikriga ilaahay xuska alleh inaanad ilaahay ilaawin ee ilaahay aada xuskiisa badinayso nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ahaa rasuulkaa wuxuu xusay inuu la kulmay nebi ibraahim habeenkii la dheelmiyey fariin buu inoo soo faray nebi ibraahim wuxuu uhi ummaddii salaan iga gaadhsii waxaanad u sheegtaa arrinta meesha jannada la yidhaahdo markaa ilaahay waa awliyadiisa ku casuumayo ayibatu turba cadbat lmaa wa inaha qiicaan qarsuha subxaana allah alxamdu lilah
walaa ilaaha ila allah wallahu akbar. ciidda jannadu waxa weeye mid wanaagsan oo udgoon, biyaheedu way macaan yihiin, waa meel isku siman oo boholo iyo buuro iyo turunturo toona lahayn. waxaa lagu beerayo ee barwaaqadeeda ay ku baxdaana waa dikriga subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar. qof waliba u odhan karaa, odayga iyo islaanta iyo mid mutacalima, mid waliba wardigaa iska kooban wuu akhriyi karaa isagoo boqolaal iyo kumayaala. dee waad beeraysaa un jannadii. waxyaabaha jannada lagu beero waxaa ka mid a istikfaarta. istikfaarta astaqfir اllaha waatuubu ilayh, astaqfir اllah, astaqfir اllah, astaqfir اllah, astaqfir اllah. astaqfirullahu maaha, dadkeenu way khaldaan. astaqfirullah waa qalad, astaqfiru llah taasaa loogu dhawaaqaya. sayid istikfaar, nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam, istikfaarta waxa hormuud u ah inaad tidhaahdo laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila ant, allahuma anta rabbii laa ilaaha ila ant, khalaqtanii wa ana cabduk wa ana calaa cahdika wa wacdika ma staطactu, acuudu bika min shari ma sanactu, abuu laka binicmatika calaya wa abuu bidanbi fakfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa ant. dikrigaa qofka ku dhawaaqa gelinka hore hadduu dhinto gelinka dambe jannadu gelaya, hadduu gelinka dambe ku dhawaaqana gelinka hore jannadu gelaya. kolba waktiga uu ku dhawaaqo jannuu ku helaya, waa wixii jannada lagu helay. waaba dikrigaa iska koobanba, qofku wuu xafidi karaa. aayat lkursiy, nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, qofka akhriya salaad walba markuu ka baxa aayat lkursiy, qofka akhriya lam yamnachu min dukhuuli اljannati ilaa an yamuut. jannada inuu galo waxaba ka hor joogo inuu dhinto. waxa isku beegmaya un isagoo ku wardiyey oo salaad ka baxaya isagoo naftu ka baxdo, jannadu cala tuul u galaya baa lagu leeyahay. ismullaahi lacdan baa ku jira, shaydaankiina way kaa eriyeysa. waxaa ka mid a waxyaabuu nebigu xusay ee inoo sahlan bee kooban ee jannada lagu gelayo ducadan suuqa marka uu gelayo qofku inuu akhriyo. laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu, yuxyi wayumiitu wahuwa xayun laa yamuut, biyadihi alkhayr wahuwa calaa kuli shayin qadiir. waxaa loo qorayaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam, alfa xasana, kun oo xasano. macnaheedu waxa weye kun lagu dhuftay 1 milyan oo xasanaa loo qoraya. 1 milyan oo dembina waa laga dhaafaya, 1 milyan oo darajona waa loo dalaacaya. waxaynu uga jeednaa waa buniya lahu beytan fi ljanna, gurina jannadaa looga sii bineeyey. soo maad jeclayn haddii meel aad soo degayso guri goglan oo sallaxan oo guryaha ugu qaalisan ee ugu raaxo badan uu sii diyaarsan yahay gurigaas, haddii aad intaasun ku wardido aada akhriyayso. waxyaabaha cajiibka ah ee inoo sahlana jannada wadooyinkeeda waxaa ka mid a su-aalu janna, inaynu ilaahay barino jannada, ama af carabi ku bari ama af soomaali ku bari, luqadda taqaano ku bari. ilaahay luqadahoo dhan in isaga ayna baray subxaana wa tacaala. rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam, waa xadiid isna saxiixa, albani silsiladiisa uu saxiix kaga dhigay, haddii qofku uu 7 jeer yidhaahdo ilaahay naartaan kaa magan galay, ilaahay naartaan kaa magan galay, af carabi iyo af soomaali midku doonaya ha ku dhaha, 7 jeerna yidhaahda ilaahay jannadaan ku weydiistay, naartiiba hadlaysa. waxay leedahay ilaahay ow addoonkaa iga kaa magan galay ka badbaadi, iga badbaadiyo iga jooji, waa loo aqbalay. ilaahay ow addoonkaa ikaa weydiistay halkan keen bay leedahay jannaduna. ilaahayna subxaana wa tacaala isagaa u fasaxaye wuu ku geynaya. maxay ku yeelaysa 7 jeer inaad ku celiso. waxaa ka mid a qowlu laa ilaaha ila allah, balaa shahaadadii suuqa yeelatee dad badan baa u haysta shahaadada in lagu islaamo la joojiyo uun, intoo lagu islaamo islaamka lagu soo galo furaheedii uun ay tahay in halkaa la iskaga xidho. ashahaadadu waa wardiga ugu qaalisanba, wardiga aad baalal ku yeelanaysaad ilaahay xaggiisa u duulaysa waa shahaadada. markaa intaad kari kartaad badinaysa laa ilaaha ila allahu, laa ilaaha ila allahu, laa ilaaha ila allahu, laa ilaaha ila allahu, laa ilaaha ila allah. nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi xadiidkii saxiixa, man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna. qofka markay naftu ka sii baxayso laa ilaaha ila allah intaa ku dhawaaqaa jannaduu gelayaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam. sidaa daraaddeed bay habboontay intaynu dadka sii dhimanaya xiijin lahay, wali misaal hebel ku lahay, hebel maxaad siinaysaa, aniga maxaad isiinaysaa, iyo inaanaan shahaadada seejinin oo aynaan ka xanaajinin. mid baaba laga yaabaa inuu ku xanaaqo u ihahdo maanaa dhaxalkayga usoo dhigata, sidaa ku shahaado seego. marka waxaa muhiima laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah, laa ilaaha illa allah in la badiyo. salaadu xusay nebigu calayhi salaatu wasalaam, qofka ku dadaalaya salaada ee aan xaqiraynin dayacaynin
ilaahay agtiisa cahdi buu dhigtay iyo ballan inuu jannada geliyo hadduu xataa gef ku dhacaba gef baa ku dhacee ilaahay agtiisa ballan buu dhigtay qofka tukanaya inuu jannada geliyo sidoo kale jannada inuu ku gelayaa buu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu ku dadaalo 12 ragcadood ee raatibada la yidhaahdo salaadaha raaca 2 ragcadood oo ka horeeya subaxa 2 ragcadood oo duhurka ka horeeya 2 ragcadood oo ka ama 4 ragcadood duhurka ka horeeya way jiraan labaduba iyo 2 duhur ka dambeeya 2 maghrib ka dambeeya 2 cishaa ka dambeeya marka duhurkii baa wuxuu leeyahay maxay 6 buu leeyahay iyo salaadaha kale oo 6 casarkii markaa kuma darin nabigu calayhi salaatu wasalaam marka 12 ragcadood hadduu qof ku dadaalo jannadu galayaa buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa tobnaad oo waxyaabaha jannada lagu galayaa man khutima lahu bisiyam yawm dakhala aljanna hadithna sahih Hudayfa warinayo qofka isagoo sooman khaatumadiisa soomo u dambeeyo maalinka ama sooman ama maalmaha u dambeeyay soomayay soonku fadligu leeyahay jannadu ku galaya infaaqa isaguna lamida oo ka 11aad wax bixinta iyo shayga deeqda nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii magaalada Madiina waxa ku yaalay ceelaad u biyo badan oo bulshadu ay u baahnayd Roma la oranay biyo Roma marka ninkii lahaa uu nabigu ku yiri il jannada ma ku iibsano umada maadsiin wax kale aan haynin buuriyo inta waan u baahana Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa ardaahu ayaa ka iibiyo ninkii lacagtiisii siiyay lacag markaa qaali ahayd ayuu ka bixiyay 35 dirham oo qiimo waqtiga lahaa laakiin nabigu afka u soo dhuubay wuxuu yiri ceelkan isaga ah hadii aan bixiyo ma ku helayaa ishii aad sheegaysay ninkii uu ku heli lahaa ila waadiga yiri haddaad ceelkan bixiso isha jannadaad ku helaysaa haa waad ku helaysaa buu daba ilaahay daraadii baan u waqfay marka in dadkan haraaday ee xiiqeed duruuftu ahaysa ceelal biyo loo qodo oo la siiyo wixii la heli karayo iyo sadaqada sheekhuba markii dhaweyd idin sheegayay waxaad u qiimo badan weyn noocyadeeda kala duwan biyahana si fadli badan waxa 12aad oo wadooyinka jannada kamid ah alxirsu ala birri alwalidayn labada waalid samafalkooda aad loogu dadaalo labada waalid samafalkooda aad loogu dadaalo Aisha waxay tiraaheen baan ku riyooday inaan jannada galayo quraan la akhriyo baan maqlay markaasaan waa ay qofka quraanka akhriyaya Haritha ibn Nu'man ninkii la oran jiray baa jannada ku jiro quraanka akhriyay baa li nabigaan u sheegay markaasuu yiri kadalika albirru samafalka caynkaas ninkaas waalidkiisii u samafali jiray buu ahaado samafalkaas uu ku helay aljannatu tahta aqdam al-ummahat jannadu waxay ku jirtaa hooyada agteeda hoosteeda marka haddaad hooyada garka qabatood maslaxatood u samafasho way kaaga dhaqaaqay hadii kale lugtii aw samiray ka saari Soomaalidu waxay yaqaanaan nin weliyaho deyntu leeyahay tolo waa mid ay sawirteen uune marka waxay dhahaan waxa lugtii aw samiraa la saaray aw samiru xaq u joogaa khiyaaliye iska sheegayaan marka si aanay lugta aw samira kaaga saarin islaanta ku hooyaa iyo aababa in loo samafalo oo loo ihsaan sameeyo jannada lagu raadiyo xusnu tarbiyati albanaat yaba ajiib hablaha wiilasha lama sheegin laakiin waa hablaha wiilashana waa lagu helaya laakiin si gaar ah nabigu wuxuu calaamadiyay hablaha oo qofku dhalay ama ay walaalaha yihiin ama mas'uulka uu ka yahay in loo samafalo waxa lagu helaa janno suuqan aynu raadinayna jannadoba wuxuu ku jira hablahan dadku ay necab yihiin maaragtay ay yiraahdaan qofka maxaa markuu gabadhu wax dhasho maxay dhashay asal la leeyahay inan hadii wuxuu leeyahay qasha keen war ma qashi la soo doonanaya hadii la yiraahdo inanna xaggaas uu isaga dhaqaaqaya markuu sahlan yahay hadaan hadal kale ka soo neefneefin uu iska dhaqaaqaya uu iska tagaya suuqoodii waa qaali hablahaas waa xaami weeye nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiix ahaa man kaana lahu 3 banaatin yuwihinna wayakfihinna wayarhamuhunna faqad wajabat lahu aljanna albat qofka 3 hablood leh oo kuwa aynu soo sheegnay oo dhalay midalan soo dhaweynaya oo samafalaya oo naxariisanaya shuruudaha ku xidhan ma hiifayo ma haaraamayo ma karaahaysanay ajrigii wuu iska burinaya bakhaylku 2 jeer buu khasaaraa haddii isagoo u shaqeynayo dadaalayo hoosta ka inkaarsan yahay oo la kuwana la igu saleeyay abaar bay qaba inanba kuma jiro
adduunyadiina lacagtii ka baxday aakhirana ajar kuma helin marka maxaa loo baahan yahay shuruuduu ku xidhay nebigu wuu soo dhowaynayaa wuu u samafalayaa wuu jeceliya wuu naxariisanayaa wakaa wuxuu gelayaa buu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam jannaduu gelayaa sawjkii waa arrintaa dumarow ka fiirsada geedkii dumar la odhan jiraa warkana u yaalla waxa weeye ninkii kiisayga la odhan jiray kiisayga la odhan jiray faraa lagu taagi jiray ee lagu fiiqi jiray bal haddaa laga fiirsada warkiisa ruux dumarahoo saxaabiyadabaa nebi maxamed u timi maalin maalmaha ka mid ah dee nebiguna asxaabta dhexdoodu ka kalluumaysanaya ama aragtidiisu aad bay ugu dheeraydoo wuxuu ahaa qof ilaahay uu siiyey caqli badnaan iyo fariidnimo iyo cilmi iyo waxyi wax walba qofba halka ku munaasibsan buu kala hadlaya markaa wuxuu ku yihi adaatu zawjin ant miyaad xaas tahay oo nin miyaad leedahay waxay tidhi haa markaa rasuulku wuxuu yihi fakayfa anti lahu sideebaad isku tihiin ama sidaad ku tahay waxay tidhi maa aaluuhu ilaa maa cajaztu canhu waxaan kari waayo waxba kama hakano waan u dadaala odaygayga markaa nebigu wuxuu yihi fandurii ayna anti minhu faaxsinii fainahu jannatuki aw naaruki bal hadda ka fiirsa arrintiisa oo u samafal jannadaanana uu noqon karaa naartaadana uu noqon karaa marka haddaad u samafashaad hagaajiso xaquu leeyahayna siiso ixsaan ugu darto jannaad ku helaysa haddii kalena naar saasuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam gabadhana haddii loo samafalo saas oo kalean janno loogu helaya waxaa 15aadoo wadooyinka loo mara jannada ka mida xusnu khuluq akhlaaqda wanaagsan walaa adraaka maa xusnu lkhuluq nebiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam xadiid sugan oo uu warinayo axmed ibnu xambal tirmidi ibnu maajah akharu maa yudkilu nnaasa aljanna maxaa ugu badan ee dadka janno geliya asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim sa hore baa inuu soo sheegnay hankoodaa weynaa su-aalaha ay nebiga weydiinayaan muu ku saabsanayn maxaa la cunaayo bal ka waran haddii aan geedkaa cuno geedkeebaa caafimaadkayga u wanaagsaniyo geedkeebaa dhalmada u fiicaniyo cawtalgasiirka lacagta lagu helaa waa kee iyo waxaasay nebiga dadka qaarkood hadday la kulmaan maanta weydiin lahaayeen iyo meelaha ugu fiicane shaqada loo maraya iyo waxaas asxaabtu waxay weydiinayaan jannada maxaa ugu badan ee lagu heli karaa xikmadii ilaahay uu siiyey buu u dhiiba wuxuu uhi taqwa allaahi wa xusnu lkhuluq ilaahay oo laga cabsadiyo akhlaaq wanaagsan eeg waa diin iyo dabeecad wanaagsan qofku hadduu labadaa leeya wuu macaan yahay ma laga caajisayo dabeecad wanaagsan baa ilaahay ku abuuray isaguna wuu ku dadaalaya inuu dabeecad fiican naftiisa u sameeyo dad kalena uu la saaxiibo iyo diin labadaa hadduu leeyahay shaqadaa loo diranayaa waa lala saaxiibayaa waa lala degayaa dumarkaa loo guurinayaa suuqiisu waa shidan yahay waaya taasuu saasuu nebigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam inaynu ku dadaalo wey mar kale nebiga waxaa la weydiiyey waxa ugu badan ee dadka naarta geliya waa taa hore cagsigeed wuxuu ihi alfamu walfarju subxaana allah waa afka iyo ibta qofkoo labadaa ka waasha afkan sare iyo afka hoose labadaasuu ka waasha oo xaaraan ayaa ka soconaysa ama uu ku wadaya naartuu gelayaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha waa qodobka 16aad ee ka mida waxyaabaha lagu galo jannada ilaahay ha inoo aqbale ee waxaa ka mida markhaatiga ay dadka wanaagsani u markhaati kacayaan qofka ama ifka ha joogo ama ha dhinto dadka saalixiinta ee wan wanaagsan ayaa qofkan uga markhaati kacaya wanaaggiisi hebel nin wanaagsan buu ahaa heblaayo qof wanaagsan ba ahay saasaa la yidhaha qofka fiican marka uu dhinto waa kii nebiga jinaasad lala soo maray markaasay dadku eedeeyeen way ammaaneen taa hore markaasuu nebigu uhi way waajibtay haddana mid kalea lala soo maro way eedeeyeen markaasuu uhi wajabat way waajibtay markii la weydiiyey tafsiirka ereyadaana wuxuu ku fasiray ka hore wanaag baa ku sheegteenoo jannaa u waajibtay ka labaadna naar baa ku eedayseenoo macnaa waxaad tilmaanteen inuu eedaysan yahay oo dembiilo yahoo dhibaatooyin lahaayoo naar baa u waajibtay wuxuu ku soo gebagabay rasuulku antum shuhadaau llaahi bacdukum calaa bacd markhaatiyaal ilaahay baati oo dhulka jooga laakiin ka waran dadka markhaatigooda la dhegaysanaya waa ayo ma faasiqiinta ma gaalada ilaa haddii imika dadka gaalada ama dadka faasiqiinta la weydiiye markhaati ka ugu shar badan bay u markhaati kacayaan inuu wanaagsanaa
qolo waliba shimbirkiisu ku ammaanaya dadka markhaatigooda lagu xisaabtamaya waa antum nebigu wuxuu leeyahay idinka waa ayo waa asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam markaynu intaa aragnay sababihii lagu gelaya jannada dee waxaa mudan inaynu guntanno intood tirsatood qodobaysato inaad mid walba isku dayda inaad ku dadaasho waxaynu usoo gudbi lahayn inaynu dhex tagno allahayna dhex geeyo jannada ilaahay subxaana wa tacaala horaynu ruqaansannay markaa jannadii baynu gaadhnay waynu daadaawanaynaa insha allah allah inoo aqbalo binaau dunya wa binaau laakhira waxaan isbarbar dhigaynaa bal halkan waxa yaale lagu wareeray ee loo waashay ee ilaahay iyo aakhiriyo diinba loo sheegay ee nicmada adduunyada lagu sheegay marka dhismaha adduunyada iyo dhismaha jannada ayaynu sheegaynaa dhismaha adduunyada waynu naqaana waa inagaa dhex fadhina arkayna laakiin dhismaha jannada uu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay labinatun min fida wa labinatun min dahab xabad labani waa dahab xabad labanina waa lacag iyo dahab macdantii saafiga ahayd halkay taale waad garanaysaa iyo qiimahay adduunka ku lahayd macdantaas qaaliga ah ayaa xabad labanoo dahaba iyo xabad labanahoo lacaga ayaa isa saaranba wa milaaduha almisku ladhar mifsalkan u dhexdhexeeya ee loo dhexdhexaysiiyo labanka isu hayaana waxa weeyaan cadarka bahalkaa la yidhaahdo miskiga ee aadka u udgoon ee qiimaha badan halkii dhoobada iyo sibirhka kaasaa ku jira waxasbaauha lulu walyaaquutu wa turbatuha zacfaraan quruuruxa jannada iyo shayga ciiddee yaalaana waa lulu iyo jawhar ayaa quruurux iyo ciid uga dhigan ciiddiina waa zacfaraan wamasaakina ayibata fi jannaati cadn jannadu waxa ay leedahay khiyaam halka dadku maanta bangalooyin ay ku barwaaqaystaan isleeyin waa ku badhaadhaysaan ay samaystaan bangalooyinka jannada ee ilaahay awliyadiisa ku casuumay buu nebigu inoo sharxaya calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy qofka muuminka ah jannada wuxuu ku leeyahy lakhayma min lu'lu waaxidatun mujawasa duulahaa 60 miilan lilmu'min dherarkeedu wuxuu leegyahay 60 mayl mise magaalay ka kooban yihin 60 mayl waa loo safraa oo safar baa loo galaa guri keliyaa intaa leeg meesha sida loogu bogsadee loogu barwaaqaystay fiiha ahluuna yatuufu calayhim اlmu'min falaa yaraa bacduhum bacda ninkii mu'minka ah halkaa xaasas baa u jooga dumarku iyay ka xanaaqin oo hinaasuu iyuu ilaa aakhire soconin fiiha ahluuna yatuufu calayhim almu'min dumar baa halkaa u jooga ninkii mu'minka ahaa oo uu la kulmayo laakiin nasiib wanaag laa yaraa bacduhum bacdan dumarkaasi isma arkayaan oo isma ogan mid waliba waxay u taqaanaa ninkan inuu keligeed qabo dadkan waxa ka waalinaya xayraanka iyo hinaasaha dumarka ugu wacnaa tii kale ama arkaysa ama uu ku maqan yahay ama wuxuu sii sidaa laakiin haddii keligii uuna iyadu isu og tahay arkayso tan kaleba aanay ogeyn waktiga uu siinayaana ku fulan yahay maxay uga baahan tahay tii kale maba ku hinaasayso saasuu nebigu ku sharxay calayhi salaatu wasalaam waxa uu rasuulku ka warramayaa aan idhaahno horta aayaddii waxay ka warramaysaa webiyada jannada webiyada adduunka waa la yaqaana maray guraan iyo maray dhoobo leeyihin iyo maray bakteriya balaaya ku dhalatay iyo maray sunoobaan laakiin qur-aanka ilaahay waxa uu ku xusay subxaana wixii la cabayay adduunkan koobabkan yaryarka ah laynoo darayay ayaaba webiyaalaba waaba webiyaal dhiishii faqriga iyo duruuftii iyo wixii o dhan baa la iska dhigay fiiha anhaaru min ma waanhaar waxa ilaahay baa wuxuu leeyahy mathalu ljannati alatii wucida almuttaquuna fiiha anhaaru min maain gayri aasin waanhaaru min labanin lam yatagayar dacmu waanhaaru min khamrin ladati lishaaribiin waanhaaru min casalin musafى walahum fiiha min kuli thamaraat waa webi biyaa webi caanaa webi khamriya webi malaba anhaar weliba anhaar waa webiyaal waa malab iyo caano iyo biyo iyo khamri webiyaal qulqulaya wax cajiiba wey ma dareemi karaysa dadkaasi inay horey ka dhergeen laakiin waxa nicmada la yidhaahdo anfac iyo arag labadaba waa inay kugu deeqdo oo nin baa wuxuu ihi wixii araggiisu ideeqaaba anfaciisu ideeqaa markaan shayga eega badnaantiisa aan arko markaasaan horta iska sii dhargaabuuri iminka wuxuu hadduu yarya waa la isku qabsadaa dadka qof walibana u warwaraa wuxuu sira ayuu kaa dhammaanin
laakiin shaygu marka aad aragtay inuu fara badan yahay barwaaqadiisu badan tahay ishuu kasii dhargayaa qofka nisaa'u dunya wa nisaa'u ljanna dumarka jannada iyo dumarka adduunyada dumarka adduunyada de waynu naqaanaa iyadoo dee aan waxba laga sheegayn haddana waa bani aadam nuqsaan leh sida ragguba nuqsaan u leeyahay waxyaabo kala duwan oo nuqsaantaas laakiin ilaahay wuxuu xusayaa marka uu dumarkan adduunyada laftigooda ka kaxeeya adduunka inaanay kuwiiba ahayn ay isbedelayaan inaa ansha'naahunna inshaaa fajacalnaahunna abkaaran curuban atraaban liasxaabi اlyamiin dib baan u habeeyey baa ilaahay heblaayadii ma aha hadday madoobaan jirtay hadday gaaban jirtay hadday waxyaabo kaloo dhaliilaa yeelan jirtay tii ma aha xururciinta ayaa kor u eegeysa allaha inaga yeelo dumarkeennana kuwa allaha ka dhigo dib u habayn baan ku sameeyey baa ilahay ui dumarkii adduunyada markaasaan ka dhigay kuwo wada da-yaroo hablo ah oo wada rag jecel oo iswada la-eg baan ka dhigay baa ilahay ui subxaana wa tacaala mar kale wuxuu tilmaamay aswaaju mudahara inay yihiin dumar dahaaro badan oo wixii adduunyada ay iska nadiifin jirtay kharashka badani kharash badan baa sidii laysu nadiifin lahaa meesha naga baxa mid la ismariyo iyo mid la isku maydho iyo mid la isku shubay iyo mid la isku udgooneeyo lacagteeni ba halkaasi ku dhamaatay aswaaju mudahara dumar la nadiifiyey ayaa halkaa jooga ayaa ilaahay subxaana qaasiraatu darfi mar kale waa dumar ishoodu ay gaaban tahay oo meel ilaahay u diiday iyo meel xaaraan ah iyo midnaba aan eegeyn xurun maqsuuraatu fi lkhiyaam waa dumar cadcadoo ku urursan meesha la yidhaahdo bangalooyinka ah waxaa si yaab badan nebigu markuu sifeynaya calayhi salaatu wasalaam dumarka hanka weyni kuwaasi higsanayaane waxau uhi walow ana imra'ata min ahli اljannati طalacat ilaa ahli اlardi la adaat maa baynahumaa walamala'atu riixa haddii dumarkii ahlujannaha mid ka midihi mabay soo bixinba way saasunbay usoo egtay caalamkeennan unbay saa usoo egtay waxay buuxin lahayd cirkiiyo dhulka inta ka dhaxaysa ayay iftiimin lahayd iftiin bay buuxin lahayd udgoonna way buuxin lahayd xurucintaa mid ka mida marada saaran madaxeedaasi khayrun min addunyaa wamaa fiiha adduunyada waxa lagu hayo oo dhan ee barwaaqo ah ee kala duwan masarkeedaasaa ka fiican meeshaynu ku xiiqayno dumarku halkay ku xiiqayaan ee kiishadan yar lagu adkaysanayo dumarow ka fiirsada barwaaqa halkaasay taalla masarkaagii iyo araggaagii labadiiba tilmaantaasuu nebigu ka bixiyey calayhi salaatu wasalaam markay saa usoo eegtay adduunkii matoosh baa lagu qabtay u wada iftiimay marka la eego udugeeda ceriyo dhul inta ka dhaxaysa ayaa udgoon masarkeediina waa qaaliyo halkaas u gaadhsiisan yahay mucaamalada ragga iyo dumarku halkaa ay wada mucaamaloonayaan way ka duwan tahay tii adduunkii ama howlaha badnayd ama lagu xiiqayay ama dhalmadu daba socotay waxyaaba badan baa jiray nebigu wuxuu leeyahy yucطى axaduhum quwata 100 rajuli fi اlmadcami wاlmashrabi wاshahwati wاljimaac midiga ka mida waxaa la siinayaa 100 nin awoodu xagga cunada iyo cabidda iyo galmada 100 nin ayaa uu la awoodayay buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam isbeddel baa meesha ka dhacay iyo dib u habayn la yaab badan mulkiga adduunyada iyo mulkiga jannada ama lahaanshaha qofku waxaan uu iska leeyahay adduunka noocuyo waynu naqaanaa iyo jannada marka la isu eego labadaas siday farqiga u dhaxeeya nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii kelmadihii xikmadda ahaa ninkii shaacirkaa kaga daba dayanaya lahaa allaahuma laa caysha ilaa cayshu laakhira faqfir lilansaari waalmuhaajira ilaahay u nololi waa nolosha jannada ee asxaabtayda u dembi dhaaf nolol adduunyada la barbar dhigi kara taa jannada ma jirto wuxuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam mawdicu sawdi axadikum min aljannati khayru min addunya wamaa fiiha mid idinka idinka midii ushiisa meeluu sidaa jannada u dhigo waxay ka fiicantahay wax alla waxa nicmo adduunka lagu hayo dhan in maanta loo waalan yahay la isku dilayo ee la isku haysto usha meesha intaa in leego jannada la dhigo ayaa ka khayr badan buu nebigu ilaahay baa wuxuu subxaanaه wa tacaala waidaa ra'ayta hama ra'ayta naciima wamulka kabiira haddii imika lagu fasixi lahaad halkaa jannada saa u eegi lahayd qof iyo lala hadlayaa waxaad arki lahayd nicmo aada u fara badan iyo lahaansho aada u weyn buu ilahay subxaanaه wa tacaala isagoo ina cishqi gelinaya shayga la yidhaahdo jannada
qur-aanku aad baa wuxuu u sharxaa sidaa sharaabka u soo sharxay waxa lagu cunayo ee kala duwan haddii ay tahay shimbirihii hilibka wanaagsanaa iyo khudradda oo kala nooca qur-aanku aad buu u tilmaamaa waanay kala duwan yihiin runtii cunadan adduunyada aynu cunayno iyo cunada aakhiro cunadan adduunka marka u horeysaba sidii lagu soo saari lahaa ayaaba xadaafiir iyo xayraan inagala kulmaya bal inta tacab loo maraya beerihii la berayay kharashka lagu bixinayay muddada la sugayo marbay ba'aysaa marba duruuf badan baa inaga haysata sidii loo soo saari lahaa marka la karinayana dee la diyaarinayana waa adiga arkay marka la cunayana waa adiga arko waabaad ku rafaadaysa saacad baad calaashanaysaa qaar baad ku merganaysaa hawl badan baa inaga haysa markay caloosha gashana in yar kadib baad oranaysaa xaggee suuligu ahaa mama hayn karaysidba waa wixii aad u hamuumaysay aad u dhareerinaysay haddana halkan markay ku hilmaan ma hayn karaysid waa inaad isdhaafiso haddii ay kugu xidhmaanna khalaas ilaahun baa kaa soo dayn karaa cid ku gurmanaysaa ma jirto sheekh mufasiriinta ka mida baa wuxuu sidaa u sharxayaa falyandur ilinsaanu ilaa طacaami annaa sababna almaaa saban uma shaqaqna alarda shaqa falyandur ilinsaanu ilaa طacaamihi qofku ha eega raashinkiisa wuxuu ka soo bilaabayaa markii la beerayay ilaa marxaladaha lasoo maraynay ilaa marka uu noqonayo qashinkii uu geynayay qofku xamaamka intaasuu isku xidhaya baraashinkii adduunku hawshuu yeeshay iyo wuxuu ku dambeeyey iyo markii hore wuxuu ahaa iyo xaaladiisa laakiin raashinka ahlu jannuhu kaa wuu ka duwan yahay waa shay aan lahayn dhibkaas ma leh intaa oo aynu soo sheegnay midna ma leh neerfaha ku shaqaynaya waa neerfihii rafaadka maaha waa neerfihii macaasiga iyo raaxada kaasaa ku shaqaynaya sidoo kale xamaamkiina ma lahae siduu nebigu xusayay calayhi salaatu wasalaam axaadiidta dambe ku arki doono waa dhidid iyo daaco dhididkiina waa cadar daacadiina waa udgoon marka halkaasuu ku hadhay wixii la odhan jiray inuu qofkii xamaam la tago waxaa qur-aanku uu ka warramay jannadu inay leedahay shaqaale dee qofkii ma raaxaysan karaya hadduu kacakufayo oo kolba uu soo maaragtay waxyaabahaynu aada u dareennay bay ka mid tahay weliba dadka waayeelkii marka halkan timaadeen inkastoo lalahaa bal hadda waddamada gaalada ay gaadhsiiya iyo meelaha lagu ladan yahay dhibka ugu weynay qabtaan mataqaana ee qofka xaggii ka yimi uu dareemayo waa shaqaalo la-aanta bal oday iyo islaan sidaa suxullada ugu soconaya shaqaysanaya oo kijinkii uu gelayo qofkiio intaa wuxuu isku dhalaalinaya halka innaga dadka waayeelka ah iyo qofka loo adeegi jiray ee loo shaqaynayey runtii tacabkaa uu ka nasanayay qofka markaa qofku kolku raaxadiisa qaadanayaa waxa weeye dad adeegayaalahoo shaqada u jajabani markay hareerihiisa boodayaan adiga arko hodheelada maxaa lagu xayeysiiyaa hodheelkaasi cunno macaan buu hayaa waxaana jooga shaqaalo jajaban bay ka odhanayaan kuwa xayeysiinaya shaqaalo jaban shaqaalo u jajaban shaqada ayaa jooga markaa waxaa la dareemayaa dee raaxadii inay qeyb weyn ka qaadanayaan shaqaalihii sidaasay tahay oo qur-aanka kariimkaa ilaahay marka uu ka warramayo shaqaalaha waxa uu leeyahy wayatuufu calayhim wildaanu mukhalladuun idaa ra'aytahum xasibtahum lu'lu'an manhuura waxaa dushooda sidaa u wareegaya oo aan mar qura ka nasanaynine ishooda iyo afkooda iyo gacantooda wixii ay dalbayaan sidaa u eegaya shaqaale markaad sidaa inama la waariyeybu horta ilaahay waxa lagu waariyey inay yaryaraadaan waa wildaan inama da-yaroo shaqaynaya oo aan intaa ka weynayn qofku hadduu weynaado maogtay ma diran karayside laba waaweyn isma dirtaan haddii iminka qofku ku ag joogo oo uu ku leegyahay ma odhan karaysi hebeloo alaabta idhi waxay kuu kalifaysaa intood kacdo inaad soo qaadato laakiin ciyaalku iyagaaba ka helaba in la diraba way isku qabsanayaan haddaad iminka laba ciyaala tidhaa ii keen anna ii dir buu kuleeyahy marka waxay ku waarayaan inay yaraadaan intaa ma dhaafayaan oo ilaahay baa u diyaariyey iyaga laftigooda shaqaalaha markaad eegto waxaad u malaynaysaa buu ilahay yidhi jawhar sidaa jannada loogu daadiyo way wada dhalaalayaan waayo hadduu dhalaalay kii loo shaqaynayey loo shaqeeyey maxaad u malaysay kii shaqaynayay hadduu saa u dhalaalayo loo shaqeeyihii maxaad u malaysay wax cajiiba wey qur-aanka kariimkaa ilaahay waxa uu ku xusay jannadu inuu khamri yaallo laakiin khamrigii adduunyada aanu ahayn laa fiiha qawlun walaa hum canha yunzafuun ma laha alkoolkii dadka sakhraaminayay iyo wareerkii lagu sakhraamayay midne waa sharaab macaan oo ladiida baydaa ladatin lishaaribiin
وخمر عد وأم عام بدن دتك عب يبا إلهي سبحانه وتعالى وايه أهل الجنة براري برواقه ودماضي وحسن السويدية علماء السويدين يعني ما سيحدان أهل الجنة ماشي هرده ما ترتاح ما يدري ليه هرده هرته محاته maxaa loo seexdaa maxaase laga seexdaa dee waxaa laga seexdaa rafaad iyo buusbuuska iyo balaayadii shaqada ku soo martay qofku markan uu leeyahay waan seexanaya dee wuu daalayn oo tacab baa haysta ama uu xanuunsado waa diifaysan yahay qofku waxba ma qabo meeshii raaxa iyo hawl iyo daal iyo tacab midna ma yaalo sidaa daraadeed ma seexanayaan ahlujannuhu seexashadeenu haddii aynu seexanana waxaynu aragnaa marar badan in dhibay naga soo gaadho oo riyo xun oo raaxada ka qaada aad aragto saadarteed baa nin baa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxuu xalayta waxaan ku riyooday iyadoo qoorta layga jaray madaxaygiina uu halkaa cararay kadibna waan soo qabsaday markaasaan isku rakibay markaa nabigu uu la yaabay wuxuu yidhi idaa laciba shaydaanu biaxadikum fii manaamihi falaa yuxadithana bihi nnaas war shaydaankaa kugu ciyaara midkiin markuu shaydaanku ku ciyaaro dadka waxba yugu sheegina iska aamusa marka hurdadii walaaqa iyo wareerkaa lahayd iyo ciyaarta shaydaanka meesha way ka baxday jawiga jannada manaakhu dunya waa manaakhu ljanna jawiga adduunyada dan waynu naqaanaayo waa idinkaa barafka la il daran in yar kadibna bacad baad u baxaysaa marna waad soo kogaysaa oo farahaaga waxay la gubanayaan qabow daraadii marna waxay la gubanayaan kulayl jawiga jannada waa mid ilaahay markuu ka warramayo uu yihi muttaki'iina fiiha calaa laraa'ik laa yarawna fiiha shamsan walaa zamhariira waxay ku raaxaysanayaan sariira dushood mana arkayaan kulayl iyo qabow ibnu cabbaas radia allaahu canhu markuu fasirayo waxa uu leeyahy waxaa la odhan karaa jannadu in ay wakhtigeedu noqon karo wakhtigan qoraxdu ay soo baxayso intuu waagu baryo soomaad arag qoraxdiibaa u dhow inay soo baxdo marka dhulkiina aada u wada iftiimaya iftiinkii wuu dhan yahay laakiin kulaylna ma jiro habeenna ma jiro kulaylna ma jiro wakhtigaasoo kale lagu tilmaami karaa suuqyada jannada oo ka duwan runtii suuqan maanta aynu ka dukaamaysanno weligiiba ha lagu faano halkaasi moolalkaasuu leeya suuq wanaagsan buu leeya suuqa maxaa loogu tagaa mushkilada suuqu waxaa runtii shaydaanku calankiisa ka taagay marka uu qofku galo dhib badan buu kala kulmaa iyo daal iyo diiqad iyo iyada oo lagaba yaabo in wixii uu sitay laga qaato iyo dhib badan baa ka soo gaadha laakiin suuqyada jannada markuu nebigu ka warramaya wuxuu uhi suuq baa jannada ku yaalla maalin kasta oo jumco ah way isugu imanayaan ahlu jannuhu kadibna waxaa sidaa u soo faafaysa neecaw riixu shimaal dabayl aada iyo aad cadar u wadata markaasay wejigooda iyo dharkooda cadar kusii daynaysa ahlu jannaha markaasaa dhalaal iyo udgoon ayaa u kordhaya sidan arooska had iyo jeer marka meelaha loo soo tiirtiirinayo loo soo giijiyo iyagiioo suuqa ka yimid oo qurux badan markay ahlu jannihii yimaadaan ay xaasaskoodii u yimaadaan xururciinta ahaa ayay xaasaskii odhanayaan quruxdiinu badana ahlu jannihina waxay leeyihin dee idinkaaba naga sii daran sidaasaa la isu caashaqaya la isula dhacayaa sidaa daraaddeed haddaba laa tu'hir ilfaani cala albaaqi waxaynu ku soo gebagabaynaynaa waxaa halkan yaallee sidaa u dhammaanayaynu aragnay ee taajirkii ka cawday ee faqiirkii ka cawday ee kii waayeyna u waalan yahay kii helayna ku waashay baasha adduunyadu waaba labadaasu kii waayey iyadiibuu u waalan yaho kaasuu sii eegaya kii helayna ku ka sarreeyuu sii eegaya waa la wada wareeray haddaba marka taa faanigee tegaysa laa tu'hirha cala albaaqi taasoo hadhayse halkaa nicmadaa badane ay taallo iyaynaan ka horraysiinin alla wuxu uhi mataacu dunyaa qaliil waalaakhiratu khayru liman ittaqaa alaabta adduunyadu way yarti aakhira ayaa jannadaa u khayr badan qofka ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala ahlujanno markay jannada yimaadaan ilaahay ula hadlaya wuxuu le maxaa idiin daran maxaan idin siiyaa waxay le ilaha wax walba waadna siisay kanaadna siisay waxba uma baahni wuxuu rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala maanta kadib wax cadho laydhaha ha ka warwarin raalli noqoshahaygii baan idin siiyey cadhadayda ha ka warwarin cadhadii adduunka ay addoomuhu aada uga cabsan jireen mar labaad buu idin ilaahay leeyahy maxaan idin siiyaa
markaasay le ilaahay oo wajiyadeeyaba cadaysa jannadiiba ayaad degelisay naar baad naga badbaadisay way kala badbateeno way dhargeen shaacu isaga qaadaya ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyada awliyada ilaahay kumay arkaynina jannaday ku arkayaana markaasuu istusaya liladiina axsanu lxusna waziyaada markay ilaahay arkaana isha saaraan allahuma ijcalnaa min haaulaa'i ayay aada u farxayaan jannada nicmadeediiba aragtida ilaahaybaa uga sii qiimo badnaanaysa waxa ay ku soo ururaysa arrintoodu markaa inay mahad badiyaan alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah ilaahay baa mahadle nicmada nagu soo hagay haddaanu ilaahay nagu soo hagi lahayn kuma anaan soo hanuuneen xamdigaa iyo tasbiixdaa sida neefsashadoo kale u wadayaanen dhib ku lahayn ayay markaa wadayaan halkaasaa farxaddiina uga sii soconaysa weligeedna aanay ka dhammaanayn lagama guurayo lagama gaboobayo lagama xanuunsanayo wax isbedeli ma jiro barwaaqadaasaa lagu waaraya iyaguna aagberdelasho ay ka doonayaan ma jiro waxa halkaa ku dambeeye horeeyaana ee ilaahay awliyadiisa iyo addoomihiisa u diyaariyu ku casuumayna waa kaa kii hore aynu soo aragnayna waa inagii soo sheegnee naaraha ahaa qur-aanka markuu ilaahay sheegaya labadaasu isku barbar sheegaa qofkii miyir qabaa isma dhaafsanaye oo jannada naarta kaadhkeeda ma qaadanayo ikhtiyaarka isagaa maanta le qofka laakiin jannadaasuu kaadhkeeda qaadanaya kuwa allah inaga dhigo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan ku dawaqay isticmaalka baraha bulshada waxaan habeenay maalin raadinayaa goob aan ka isticmaalo isla markaana aan kala socdo muxaadaraadka diiniga iyo barnaamijyada xasuusinaya aakhiradayda talow halkeen ka helaa ma ku haysataa cabashadan oo kale haddaba waxaan ku hayaa janalka warbaahinta nolosha islaamka oo ah tv dacwadeed oo ka shaqeeya arrimaha dacwadda kaas oo aad kala soconayso barta youtube-ka waxaad ku qortaa warbaahinta nolosha islaamka waxaa kuu soo baxaya janalka warbaahinta nolosha islaamka ku sii dhufo waxaad sii gashaa qaybta ay ku qoran tahay playlist oo aad ka helayso in ka badan 30 qol oo ay ku kaysan yihiin muxaadaraad iyo barnaamijyo diiniya qaybaha waxaa ka mid ah qayb ay ku kaysan tahay muxaadaraad qayb ay ku kaysan tahay kutub tala duubay sida tafsiirka qur-aanka kariimka xusnul muslimka alfiyatu siiratu nabawiya iyo xadaaradda islaamka waxaad kalood ka helaysaa qayb ay ku kaysan tahay tartanada qur-aanka kariimka iyo aadaanka salaada waxaad ka helaysaa su'aalo diiniya iyo qaybo kala duwan oo ku kaysan oo ay ka mid yihiin barnaamijka arrimaha bulshada caawinta dadka baahan qisooyin muhiima khudbadaha jimce cawayska hibada daasoon iyo qolka ay ku kaysan yihiin bandhiga ardayga oo ah barnaamij lagu dhiirigeliyo madaarista qur-aanka kariimka khayrka ka faa'iideyso sina gaadhsi walaalkaaga islaamka ballanteena waa warbaahinta nolosha islaamka